Bismillah, baaqan iyo fariintan madaxweyne Sheekh Shariif oo u soo dirayo dhalinyarada Soomaaliyeed ila dhageyso. maanta tiknoolajiyada la haysto codkaaga iyo fariintaada waxaad gaarsiin kartaa 5 qaaradood. Soomaalida maanta dibadda joogta waa ka muuqdaan, aqoon ay uga muuqdaan, waxay uga muuqdaan ganacsi, waxay uga muuqdaan si walba. haddii la isku xiro marka kuwa dibadda jooga oo dadnimada leh, oo kartida leh, oo aragtida leh, oo wanaagdoonka ah iyo kuwa gudaha jooga, isbedel degdega ayaa dhici kara. annaga hadda jiilkii idinka weynaayana dawladdii aanu u korduntay intii aan keeni karna halkaanay noqoto. wixii nugu harayna diyaaraanalna mustaqbalkiina iyo mustaqbalka carruurtiina ayaa laydinka rabaa inaad ka fikirtiin jiilka soo socda mustaqbalkiisa sidii loo badbaadi lahaa. sida lagu badbaadi karaa waa midnimo keliya. laguma badbaadi karo sida hadda wax ku socdaan. qof la arkaba inuu yidhaha maxaa iga galay hoostayda muhiim ii ah, waa marxalada soo gaara iyada laftigeeda lama haynin, laakiin waa in laga gudbaa. marka meesha aan u soconnaa waa midnimo, meesha aan u soconnaa waa dowladnimo, dowladnimo macno leh oo dowladnimadii lagu yaqiin dadka Soomaaliyeed oo haybaddii iyo karaamadii soo celinaysa oo shafaafiyo iyo isla xisaabtan iyo ku dhisan maxay tahay hantida ummadda inay badbaado ayaa la iska rabaa. Madaxweyne Sheekh Shariif sida aan ogsoonahay waa madaxweynihii keenay in Soomaaliya dhexdeeda la isku doorto. maantana wuxuu fariin iyo baaq u soo dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan kala baahan yahay dhalinyaro inaad dhulka ka qaadaan. danteena iyo dalkeena dantiisa ayaa ku jirto. dhalinyarada ku nool qurbaha iyo dhalinyarada ku nool dalka markii la isku xiro wax weyn ayay sameyn karaan, isbedel weyn ayay sameyn karaan. waana xaqiiq xilligan la joogo waxaa la isticmaalaa tiknoolajiyada. baraha bulshada ayaa wax kastaba lagala socdaa. adduunka oo dhanba wuxuu iskala socdaa waa baraha bulshada. dhalinyaro baaqa madaxweynaha dhulka ha laga qaado.